السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay maanta oo talaada waa barnaamijkeennii habeenimo taariikhduna waa 27 Febraayo sanadka 2024 dhowr qodob oo muhiim ah ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waana wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. haddaba magaalada Gaza ayaa la soo sheegayaa xaaladii ka jirtay bini'aadanimo inay aad u sii xumaanayso iyadoo caruur yar oo naaska nuugaya la sheegay gaajo darteed saacadihii la soo dhaafay inay ugu dhinteen waqooyiga magaalada Gaza. haddaba xilli dadku ay bilaabeen inay gaajada u dhintaan ayay bilaabeen dowlado dhowr ah inay hawada sare diyaarado inta qaataan ay uga ridaan raashin. haddaba maxaa keenay arrintaas? maxay dhulka raashinka yaalla Masar inta loo qaado loo geyn waayay? Israa'iil sababta ay hawada u ogolaanayso dhulka u diidayso maxay tahay? haddaba waxyaabihii laga qoray sheekadaas iyo wararkan naxdinta leh ka soo baxaya Gaza ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. warar goordhow ay soo saareen militariga Israa'iil waxay ku sheegeen in dagaalo maanta dhacay saacadihii la soo dhaafay askar fara badan looga dhaawacay magaalada Gaza. qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka waxaan idinkugu hayaa war aad u xiiso leh. magaalada barakaysan ee Maka al-Mukarrama gaar ahaan masaajidka xaramka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu qabsaday baraha bulshada ee dalalka Carabta kadib markii la sheegay arrin qusaysa Falastiin inay halkaa ka dhacday. markaa dadkuna way kala qaybsan yihiin. xitaa waxaa ka soo hadlay imaamka ahna maamulaha labada xaram ee Sacuudiga Cabdiraxmaan sheekha la yiraahdo Sheekh Cabdiraxmaan as-Sudays. haddaba waxa meesha ka dhacay iyo waxa miidiyaha ay markaa u falanqaynayaan iyo xiriirka Falastiin uu leeyahay intaba waan ogaan doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. Ria Money Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 waddan oo caalamka waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS bangi. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyada aan idinkugu talagalnay caawa iyadoo maanta ay ahayd maalinimo talaada ah. haddaba warka ugu horeeya ee barnaamijka aan idiin hayo waxaanu ku faahfaahin doonaa war soo baxay saacadihii la soo dhaafay oo aan farax gelinin dad badan ayaa wuxuu muujinayaa dadka reer Gaza inay bilaabeen inay u dhintaan gaajo. wixii hore sheekay ahayd way dhiman rabaanay, cawsaa la cunayay, kana la sameeyay. xaaladdu marka hadda waxay maraysaa halkii ugu xumaay maraysaa. haddaba caawa warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Falastiin ee magaalada Gaza waxa ay sheegtay in ay dhinteen 2 cunug oo naaska nuugayay
kuwaasoo gaajo iyo nafaqa darro darteed ugu dhintay dhinaca waqooyi ee magaalada gaza. haddaba wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta waxay sheegaysaa maantoo talaado ah inay dhinteen 2 cunug oo yaryar oo kuwa naaska nuuga ah, waxayna u dhinteen gaajo iyo nafaqa darro. haddaba arrintani waxay ka dhacaysaa leeyahay dhinaca waqooyi ee marinka gaza oo maalmihii lasoo dhaafay aada looga deerinaya xaaladda dadka halkaa ku nool. wasaaraddu waxay intaa ku daraysaa in 2 cunug sababaha ay u dhinteen ay tahay gaajo iyo nafaqa darro, weliba ay ku dhinteen cisbitaalka la yidhaahdo kamaal cudwaan ee ku yaala dhinaca waqooyi ee marinka gaza. cisbitaalkia xataa waxay cunaan carruurtii u waayey. haddaba marka waxaa la sheegayaa in xaaladda soo korortay ay khatar iminka u saaran yihiin dad fara badan oo kumanaan ah oo ku nool marinka gaza inay u dhintaan xaaladahaas hadday tahay gaajo iyo nafaqa darro. waxyaabaha ugu horreeya laga digayo waxaa ka mid ah carruurta iyo hooyooyinka uurka leh inay khatar ku jiraan oo ay arrimaha laga yaabo haddaan deg deg looga soo gaarin inay u dhiman karaan. wasaaradda caafimaadka falastiin ee magaalada gaza waxay ugu baaqaysaa ururada caalamiga ah ee sheegan jiray inay iyagu markaa ka shaqeeyaan arrimaha carruurta iyo haweenka, hadday waxba hayaan oo adduunyadu arrintaa u qaabilsan yihiin inay maanta dadkaa badbaadiyaan dhibaatada ay ku jiraan loo jeedo. marka warkaasu war wanaagsan maaha, laakiin waa u ducaynaynaa. waxaan leenahay ilaahayow dadkaa dhibaatada iyo musiibada ku habsatay ka dulqaad. waxaan leeyahay ilmihii yaryaraa way bilaabeen inay dhintaan. awal maalmahan oo dhan waxaasaa la cunay, kana cunto laga sameeyey, dadkii xaaladoodu khatari ku jirtaa aa lagu jiray. hadda wasaaradda caafimaadka toos waxay u leedahay dhimashadii yaa bilaabatay. maxaana loo dhimanayaa? gaajo iyo nafaqa darro. marka carruurta yaryar way dhimanayaan. waxaa kusoo xigaa leeyahay carruurta iyo hooyooyinka uurka leh way nugul yihiin, iyagaa marka ugu daran. marka ilaahay dadkaa musiibada iyo mushkiladda ku habsatay allaha ka dulqaadaan leenahay. waaya sheekada marka cajiib kale waxay tahay dadkaasoo saas hadda waa dhimanayaan laleeyahay oo xaaladoodu xun tahay. gargaarkii adduunyada ay ugu tala gashay xooggiisa wuxuu yaalaa magaalo la yidhaha cariish oo ku taala xuduudda masar iyo gaza. maraakiibaa lagu keenay cuntada, waxaa lagu keenay diyaarado, intaasoo alaabaa taalla halkaas. awood looma laha in inta la qaado dadkaa dhimanaya loo geeyo. 2 kilomitray u jiraan meesha cuntada taallo iyo meesha dadku ku dhimanayaan, laakiin israa'iilaa diidan. dowlad afka kala qaadi karto annagaa geynayna ma jirto. sheekada marka cajiibka ee la qorayo hadda waxaa la leeyahay dowlado dhowr ah ayaa waxay bilaabeen inay raashin inta diyaarada ku qaadaan, kadibna ay maaragtay sanduuqyo ku ridaan. sanduuqyadaas baarshuud lagu xiro, hawada sare laga soo daadiyo. dadku marka waxay leeyihiin arrintan way fiican tahay, dadka wax waa la gaarsiinaa, laakiin maxaa u diidaya dhulka in la mariyo oo markiiba intaasoo shixnadood oo baabuura ay dadka harqin karaan oo cuntada siin karaan? diyaaradba wax laga soo tuuro maxay? haddana diyaaradihii waxaa la yidhi dhinaca badda keliya ka tuuraya. baddaa safanaysaa, laynaa gelaysaa, baddaas wixii kusoo dhaco aad dadku marka wax ka qaadanayaan. waa cajiib soo maaha? marka warbixin marka laga qoray sheekada waxay leedahay howlgallo cirka looga daadinayay gargaar ayaa waxaa laga fuliyey marinka gaza, waxaana howlgalkaa ka qayb galay faransiiska, qatar, masar, imaaraad iyo urdun. fiiri meeqa dowladood waayo. urdun iyo masar xuduuday bay laleeyihiin, u fiirsada. qatar iyo imaaraad iyo meel kora ha ka yimaadaan, faransiis meel kora ha deganaado, laakiin kuwanna xuduuday laleeyihiin, kuwanna xuduuday laleeyihiin. weliba gaza waxaa xuduud laleh masar, kuwa kale daanta galbeed ee xuduud laleeyihin.
marka mushkilad noocaasa jirta. marka way isdifaacayaan masaarida, waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa dhulkii gargaarku mari lahaa waqooyiga Gaza in israa'iiliyiintu ay burburiyeen oo baabuurtu meelay maraan aysan lahayn, ay marka ku xanibmaan dhibaato kale haddana ay gaarto. laakiin weygan cirkaa looga daadinaa dadka guryahooda iyo meesha markaas hawsha saasay ku soconaysa ay ku leeyihin. marka dee waa arki doonaa, xaaladdu waa iska allow sahla iska noqotay xaaladdu, marka ma fiicna meeshaasaa marka wax marayaan. waaya qodobka kale ee barnaamijka waxaan idinkugu hayaa israa'iil ciidamadeeda ayaa war soo saaray. waxay yidhaahdeen saacadihii lasoo dhaafay dagaalo culus ayaa dhacay dheheen. dagaaladaas marka askar fara badanaa nooga dhaawacantay leeyihin, waxaa naga dhintay weli makayn oo fiirsada, waxaa naga dhaawacmay leeyihin. marka intay ayagu sheegteen unbaa warbaahintu marka u sheegaysaa. ciidanka israa'iil waxay sheegeen inay ka dhaawacmeen 13 askari dagaal ka dhacay Gaza. marka maalin gudaheed waay intaas intay kaga dhaawacmeen. haddaba marka warbixintu marka way sii socotay, waxay leeyihiin 24 saac gudahood ayay 13 askari dhaawac kasoo gaareen dagaalo adag oo ka dhacay marinka Gaza. haddaba marka waxaa leeyahay ciidanka israa'iil waxay sheegeen in tiradan ay ku kordhinayso tiradii awal ciidamadooda kaga dhaawacantay dagaalka tan iyo markii uu bilowday 27 Oktoobar. dagaalka dhulka ah wuxuu bilowday 27 Oktoobar, midka kale ee Xamaas ay qaadayna waa 7 Oktoobar. macnaha 20 maalmood kadib ayay weerarka dhulka ah bilaabeen, laakiin inta ka horreysay duqeymo iyo waxaana wadeen, ma dagaalku waa iska socday. waaya sheekada markaa halkaasa iyaduna aan kaga gudbaynaa. warka aadka marka xiisaha u leh caawa oo aad socialka maaragtay miidiyaha carabta uu aad u haysto wuxuu yahay, dadku horta way kala qaybsan yihiin. anaga laftirkeena waxaa laga yaabaa markaa idiin soo daayay inaad fakar ahaan kala qaybsantaan oo qof walba fakara uu arko. waayahay sheekadan marka waxay ka dhacday xaramkay ka dhacday, masjidka xaramka magaalada barakaysan ee Maka ayay ka dhacday sheekadan. saacadihii lasoo dhaafaa layidhi, maalinta ay tahay ma la sheegin, laakiin waa saacadihii lasoo dhaafay. ilaa waxay noqon kartaa 72 saacadood, 3 maalin 4 maalin meelahaas gudahood. marka waxay haysataa hadda warbaahintii maaragtay social mediahii carabtoo dhan muranaa ka socda. marka saas markaan u dhexgalay ayaan sheekadan marka waxaan isiri bal asxaabtaada la wadaag. marka sheekadu marka waxay ka bilaabatay gabar u dhalatay waddanka Turkiga oo cimraysanaysay oo cimro u tagtay masjidka xaramka, ayaa markii cimradeedii la sheegay inay dhammaysay oo macnaha dawaafkii kacbada ay dhammaysay, ayay waxay la soo baxday calanka Falastiin. waxa muranka dhaliyaa idin rabaa moogta inaad fahamtaan. waxay la soo baxday calanka Falastiin ee la soo baxday. calanka Falastiin markay la soo baxday waxay ku qaylinaysay aan u ducayno walaalaheen dhibaatada lagu hayo. dadkii ducay bilaabeen. askartii soo kala orda marka. askartii Sacuudiga ahayd ee xaramka waardiyeenaysay ayaa gabadhii ku dagatay, waxay ka qaadeen calankii, waxayna ku yiraahdeen mar dambe tallaabo noocan oo kale ma ka sameyn kartid halkan, waa ku xiraynaa yiraahdeen. sheekadaasa marka waxaa la soo dhigay baraha bulshada. kadib muranaa dhacay marka. waay Sacuudiga calanka maaragtay Falastiin waa dad muslimiina oo maanta duca u baahan, tabar kaleba ma hayne, gabadhaa sababta loogu bahdilay xaramku maxay tahay? dadaa ku doodayo. buuqiyaa batay marka. dadka intiisa badan waxay u bateen gabadhaa la taageeray. gabadha ayaa taageero loo muujiyey.
kadib marka waxaa soo hadlay cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan as-sudays oo ah maamulaha labada xaram ahna imaamka masjidka xaramka khadiibkana ah sheekh cabdiraxmaan sudaysa hadal diiday hadalkii markuu jeediyey baraha bulshada loogu talagalay isaguna hadal dadkan maaragtay dagaalka ka socda baraha bulshada ayuu isaguna marka dadkii la hadlay isagii hadalkiisii haddana lasii fasiray isagu marka wuxuu yidhi halkan waa makaan cibaado waa yidhi halkan waa meel cibaadaa loo yimid shicaar koox ama waddan ama waxa kan iyo qofku inuu meesha ku muujiyo iyo looguma talagelin mana la aqbalayo waxa ciidanku ay gabadha uga qaadeen calanka una sheegeen inaanay mar kala samayn waa qawaaniinta noo taalla u leeyahay أمن الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به. جعل الله الحرمين مكانا للعبادة ليست لرفع الشعارات ولا للهتافات ولا لصرف العمل في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة لغير العبادة ولغير الدين. وايه سديس marka hadalkaas isagu wuxuu ula jeeday buuqan ka socda baraha bulshada in lagu damiyo Soomaa asaga yaa qola daba dhigtay marka Sheekh Sudays alla daba dhigtay waxa la yiri wuxuu noo sheegaa maxaa waaye shicaarka Falastiin waa mamnuuc meel cibaado waa markuu leeyahay waxay soo qaadanayaan marka isagoo minbarka saaran oo khudbad jeedinaya oo maartay arinta dagaalka Yemen ka hadlaya oo inkaaraya Yemeniyiinta oo muxuu ahaa u duceynaya dhaxal sugaha boqortooyada calankii boqortooyadana meesha u yaalo wixii isagoo xaramka sheekada ka sheegaya la soo qaadana waxa leeyahay maalin walba wuxuu rabo baa noo sheegaya Sacuudigan ninkan wadaadka imaamka shalay sootuu meeshan siyaasad iyo wax loogama hadli karo cibaado way u lahaa shalay sootuu arinta Yemen ka hadlay Soomaali walba uma duceeyo ninkan maartay dhaxal sugaha haddana kaaga daran waxay leeyihiin khudbadiisa waxa ku jirta markuu u duceynayo Maxamed bin Salman oo la og yahay boqortooyada isbedelku ka sameeyay leeyihiin waxay dadka ku doodayeen marka waxay leeyihiin ujeedooyinka iyo fakarkiisa uu ku hormarinayo boqortooyada uga duceynay leeyihiin xaramka markaas Sudays oo arinta ka duceynay la keenaa marka waxa leeyahay ninkan ujeedadiisa maxaa waaye gabdhaha gaari waa kacayn karaan waa kala socon karaa meeshana waxa la sameey karaa kana la sameyn karaa meelaha kalaabiya laga furi karaa waxa ninkaana arintii uu ka duceynay leeyahay marka yaa wax loo sheegay leeyahay marka doodaas aadka u adag ayaa social media carabti isku garaacayaan qaar marka waxay la safan yihiin Sudays iyo inaan xaramka waxaas lagu sameyn karin oo macnaha meel cibaado ay tahay qaarna gabadha la safan yihiin gabadha iyo Falastiin oo la neceb yahay iyadoo lagu raali gareynayo macalinka weyn iyo Israa'iil gabadha loola dirina maahane ayagaba waxay rabaan ku qastaan xaramka maalinkay rabaan waxay rabaan ku sameystaan kuleeyeen marka adikuna fakar maxay la tahay sheekadan aragtidiina iyo fakarkiina soo qora yaa saxan Sacuudiga saxan mise gabadha calanka la soo baxday ee Turkida ah haloo duceeyo ku qeylinaysay Falastiin oo calanka Falastiin la soo baxday adikuna bal fakarkiina iyo aragtidiina sida ay noqoto aan aragno qaybta commentiska ama fariimaha noogu soo qora aragtidiina hayloobin barnaamijka inaad like gareyso oo aad share gareysid meel kastoo aad naga daawanaysaan hadday tahay Facebook iyo YouTube haddaad nagu cusub tahay hayloobin subscribe-ka YouTube-ka haddaad nagu cusub tahay Facebook-gana follow garey si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno khiyaare haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo